إلهي سبحانه وتعالى وحكو شيغي كتاب كيسا إنو نعدلي رير بنو إسرائيل وحو إلهي سبحانه وتعالى شيغي نعدشا إن لو صفري نبي إلهي داود يا نبي إلهي عيسى بن مريم عليهما الصلاة والسلام وحا ربي سبحانه وتعالى وعديي نعدشا وحا يكم التيستين وإن قار كميدي أي سمايان وح شرعي إلهي الدين إلهي خلافصا منكر وحي شريعة أي ديدتك أي كريبتي انت كلنا أي كامسان ومنكرك أي حمانتا أي معاصدا يا وحا إلهي لقى عريسين يا وحباني كورا إلهي سبحانه وتعالى وحو المامي لبدا قولبا كوا حمانتا السمايي يا كوا كامسا كريبي وايي إنayين kuwa wuxuu sameeyay oo ay ku mutaysteen Ilaahay subhanahu wa ta'ala naxariistiisa inuu ka didiyo Ilaahay caradiisu inay ku dhacdo ciqaabkiisuna uu ku habsado arrinka noocaasi maaha mid ku gaar reer banu Israa'iil waa arrin ku xidhan ficil cid kasta oo ficilka samaysa arrinta iyagay kala xukum noqonaysa waxaana naftooda ay u bandhigeen oo ay u sababeen عقابك إلهي سبحانه وتعالى قلدا سوء الشيء مقالة هرقيسة إنو دقنا هاي إما أنت صلاة الجمعة إنو كنت كان إنو حالي وحا كبعضي إيا مرار هروكوه الرئيسيبة معصية عظيمة تسخط رب العالمين معصية هذه أدوين والله عالمين تابوري كعريسين وهدينو كامسنو نعدشا إلهي أي نقول عيسى سيدة إلهي آيات داسيو كنت المامي ما معصيتك قاركوت سيهو سوقر صونا يوسميين هذا سيدة نقول لها يقا ينبا لو تقي لها ولواني لها ومعصي بنانك الله صباحي والله موجستي ومعصي لغا سيدة ورباهنته وعالم كميل والبلغة داوضي كدبنا اللباهي وما انت ميل والبكوشرته oo dhalinyarteena hablayeynamaba ay maantaba laga yaabo qaar badan inay daawanayaan waxa dhacday in hool weyn ay isugu yimaadeen dad tiro badan oo rag iyo dumar bale oo dumarkaasi in badan oo kamid ay yihiin kuwa qaawan timahoodu ay qaawan yihiin cawradoodu banaanka ay taalo ragga iyo dumarkaasi waa isku dhex jiraan واسجيدانayaan oo isqabqabsanayaan qaarkood muusig baa meesha laga garaacaya heesana waa laga tirinaya dadka inta kalena falka foosha xuna ilaahay ka careysiinayay daawanayaan oo qaar fara badan ay la dhacsan yihiin ay mirqaansan yihiin oo iyaga laftoodu laga yaabo inay la qaadaan ama base dadkaasi ay la ciyaaraan arrinka noocaasi in laga aamusa waa xaaraan in laga hadlo umada looga digo ilaahayna looga bari noqdo ayaa waajiba arrinka noocaasi inuu xaaraan yahay ma aha mid qof muslima ka shaki geli kara culamaa ulislaam laga soo heli maayo horeysa iyo dambayso mid yidhi waxaasaa xalaala inay dumarku sidaa isu qaawiyaan oo rag iyo dumarku sidaa isu dhex galaan iyagoo ajnabi kala sidaa isu taataabtaan oo ay tiriyaan heesaha noocaasa fuxshiga iyo foolxumada xambaarsan in la garaaco muusigaas arrinta noocaasi ahi inay xaaraan tahay waa mid ay isku waafaqsan yihiin culamada islaamku kuwii hore iyo kuwa maanta joogaba arrinka noocaasi wuxuu sababayaa ciqaab ilaahay wuxuu ciqaabka ilaahay u sababayaa kuwa samaynaya haddaana ilaahay subxaana wa tacaala uga toobadkeenin wuxuu ciqaab ilaahay u sababayaa kuwa lagu dhex samaynaya ka aamusan ee aan ka hadlahayn ee aan u hoggaansamahayn amarka nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ee uu yidhi man ra'aa minkum munkaran falyugayiru biyadih fain lam yastatic fabilisanih fain lam yastatic fabiqalbihi wadalika adcafu liimaan qofka idinka mid ee arka wax shareecadu diidoo la samaynayo hadduu awoodu leeyahay oo maamulkiisa waxaasi uu hoos yimaado iyo taladiisa
gacanta waxaa kaga qabto ha ku bedelo haddaanu taa awoodina ha ka hadlo xumaan inuu yahay ha sheego haddaanu awoodina qalbiga ha ka naco maanta saddexda arrimoodba dad awoodo ayaa jira dad laba awoodo ayaa jira dad mid awoodo ayaa jira qof kastoo saddexdaa arrimood ee nebigu ina faray calayhi salaatu wasalaam awooda ama qaar ka mida awooda oo amarkaa nebiga calayhi salaatu wasalaam fulin waaya waxa uu xukunkiisu noqonayaa sidaa ilaahay reer banu israa'iil uu ku sheegay nacdashaa ilaahay reer banu israa'iil ku dhacday baa isagana ku dhacaysa ilaahay baynu nacdashiisa ka magan gelayna cid muslima lama jeclin nacdasha ilaahay inay ku dhacdo waxaynu uga hadlaynaana waa taas arrinka noocaasi ciqaabka aakhiro intaan la gaadhin ciqaab adduunye ayuu leeyahay waxaan jeclaysay 3 xadiid inaan xusuusiyo dadka muslimiinta ah oo ka warramaya dhaqanka noocaasi ciqaabka ilaahay inuu sabab u noqonayo adduun iyo aakhiraba si gaarana adduunyada axaadiidu ay u tilmaantay xadiidka koowaad cimraan ibnu xusein radi allahu canhu ayaa nabiga calayhi salaatu wasalaam ka wariyey wuxuu uhi rasuulku layakuunana fi hadihi اlumma khasfun waqadfun wamaskun 3 ciqaab baa ummadan qaar ka mida ku dhici doona ciqaabka koobaad waa alkhasf waa dhulgariir iyo dhulgo dadka qaar in dhulka lala jaro in badan baynu maqalnay oynu daawanay dhulgariiro dhacaya iyo dhulgo meelo fara badan ilaahay subxaana wa tacaala uu ka riday oo dhulkiisa ka mid a marka horena waxaynu rumaysannahay inuu ilaahay subxaana wa tacaala arrinkaasi uu awoodo ciqaabka labaad waa alqadf waa in xagga sare ciqaab lagaga keeno dadka oo ilaahay subxaana wa tacaala waxa uu doono oo ciqaaba xagga sare uu kaga keeno awoodna uma laha inay iska difaacaan ciqaabka saddexaadna waa almasku waa in la dooniyo oo dadkii bani aadamka ahaa ilaahay bani aadamnimo ku karaameeyey in xayawaannimo dib loogu celiyo oo suuradoodii la bedelo oo daayeero iyo doofaara ay noqdaan 3daa ciqaab goorma ayay ku dhacayaan qaar ka mida ummadda nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waa la weydiiyey nebiga calayhi salaatu wasalaam mataa yakunu dalika arrinkaasi goormu dhacaya qaala calayhi salaatu wasalaam wadalika ida sharabuu lkhumuur ida sharibuu lkhumuur wاtakaduu lqaynaat wadarabuu bilmacaazif rawahu tirmidi 3 dembi dadku marka ay sameeyaan ayaa 3daa ciqaab ilaahay subxaana wa tacaala uu ku abaalmarinaya waa markay khamriga cabbaan oo khamriga cabistiisu ay badato waa marka ay samaystaan hablo heesa adiga arkaya maanta sida loogu faaninayo hablaha macaasida iyo munkarka noocaasa samaynaya halkii looga nixi lahaa ee laga waanin lahaa ee ilaahay ka baqo waxaan iska daaya loo odhan lahaa arrinka saddexaadna waa markay muusiga garaacdaan wadarabuu bilmacaazif almacaazif waa aalaat llahi waarab waa qalabkaa heesaha loo garaaco weeye ee magacyada iyo noocyada kala duwan leh 3 b3 3daa ummaddu markay samayso 3daasi ayaa sugaaya xadiidka labaad nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi sawtaani malcuunaan sawtu mizmaarin cinda nicma wa sawtu waylin cinda musiiba rawahu lbazaar bisanadin xasan 2 dhawaaqba waa nacdalan yihiin cidda nacdalani waa cidda dhawaaqyadaasi ay ka soo baxayaan iyo cidda dhegaysanaysa iyagoo awood u leh aan inkirahayn ee aan diidahayn hadday doonaan kuwa faraxsanoo maalkooda iyo lacagtooda ku bixinaya waa nacdalayin macnaheedu waa maxay ilaahay naxariistiisaa lagu waaye raxmat ullaahi fi dunya walaakhira naxariista ilaahay baa lagu waayey adduun iyo aakhiraba mar haddii raxmada ilaahay la waayana waa qadab iyo cadho ilaahay baa ummaddaa ku dhacaysa ilaahayna ciddu waa cadhooda waa cadaabaa ilaahayna subxaana wa tacaala cadaabkiisu waa noocyo badanyi dhawaaqa koobaad waa dhawaaq muusig oo marka ay nicmo jirto iyo barwaaqo lagu tiraabo o lagu dhawaaqo hadduu aroos jiro haddii xafladii ay jirto haddii nabad iyo barwaaqo la haysto maanta waa adiga arkaya
waxaabuu ka mid noqdayba nolosha caadiga ah. haddii xaflad la qabanayo, haddii aroos uu jiro, in muusig loo garaaco. nebi maxamedna wuxuu leeyahay sawdkaasi cidda ku dhawaaqda waa cid nacdalana naxariista ilaahay uu ka fogeynayo. dhawaaqa labaadna waa hoogayay baxda marka ay musiiba iyo dhibaata ay dhacdo, waa baroorta dumarka qaarkood ay sameeyaan. ilaahay subxaana wa tacaala naxariistiisa kama maaranno, ciqaabka rabbina subxaana wa tacaala uma babac dhigi karno. kuwa iska caabiyi kara ma nihin, mana lihin awood aynu ugu sabirno oo aynu ugu dulqaadanno. xadiidka saddexaad isaguna tilmaamaya ciqaabka ka dhalanaya munkaraadka, foolxumooyinka iyo macaasida maanta dhacaysa, waa xadiidu abi malik aw abi caamir alashjaci. wuxuu sheegay inuu maqlay nabiga calayhi salaatu wasalaam oo leh layakunana min ummatii qowmun yastaxiluuna alxira walxariira walmacaazif. ummadayda waxaa ka mid noqon doona, waxaan waqtigii nabiga calayhi salaatu wasalaam aan jirin, laakiin rasuulka ilaahay waxyi ugu sheegay inuu dhici doono oo dad ummaddiisa ka mid oo shahaadanaya ay samayn doonaan. waxaanuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam usii sheegayaa waa digis ummadda uga digaayo. waxay sida xalaasha oo kale u isticmaali doonaan zinada iyo waxaa loo yaqaano xariirta oo raggu ay xidhaan, sida dharka caadiga ee xalaasha loo xidha ay u xidhaan, iyo almacaazif waxay xalaashan doonaan, qaarkood ay kuba xaragoon doonaan oo ay ku faani doonaan oo sida xalaasha ay u samayn doonaan inay garaacdaan qalabkaa heesaa loo garaaco. walayanzilana aqwaamun ilaa janbi calam. dad ka mida dadka waxaa iyo falka noocaasa samaynaya ayaa waxay degi doonaan buuri nabigu calayhi salaatu wasalaam, buur dhinaceed bay degi doonaan. yaruuxu calayhim bisaarixa. qofkii xoolaha u raacayay ayaa xoolahoodii kusoo caraabin doona. bisaarixatin lahum yaatiihim ay aaalib almuxtaaj alfaqiir. waxaa u iman doona qof baahan oo baryayo wax weydiisanaya. mirqaanka noocaasa bay iskaga jiraan oo muusigaasay garaacanayaan oo waa heesayaan. baahida iyo gaajada qofka wada maba dareensana. fayaquuluuna irjic ilayna gadan. waxay ku odhan doonaan maanta iska tago berri nagu soo noqo. ilaahay subxaana wa tacaala makrigiisay aamin ka yihin oo iyagoo foolxumada iyo macsiyada noocaasa samaynaya, haddana waxay iskaga xisaabtamayaan nabadan iyo barwaaqadan inay iskaga sii jiri doonaan. wuxu uhi nabigu calayhi salaatu wasalaam fayubayituhum allah wayadacu alcalam wayamsaku aakhariina qiradatan wakhanaaziira ilaa yowmi alqiyaama. ilaahay subxaana wa tacaala wuu miraya, ciqaabkiisuu ilaahay ku miraya. goor habeena iyagoo hurdo iska baraadla ayaa cadaabka iyo ciqaabka ilaahay u imanaya. waxay sameeyeenna waa waxaa xadiidka xaggiisa hore lagu sheegay, taasay ciqaabta ku mutaysteen. ilaahay subxaana wa tacaala buurtaa weyn ay dhinac degan yihiin buu ku duminaya. imisaynu maqalaa maanta dad ay buura ku dumeen, dhulkii intuu la go-ay ay ku aasmeen oo meydkoodii beryo dhan laga qodayo oo laga soo saarayo. qaar kalena ilaahay subxaana wa tacaala oo qoomkaa ka mid a wuu doorin doonaa oo wuu maskin doonaa, suuradoodu bedeli doonaa, wuxuu ka dhigi doonaa kuwo leh muuqaalka daayeerka iyo doofaarka. marka hore xagga qalbiga ayay ka bedelmeen oo halkii ay ahayd inay noqdeen bani aadam ilaahay karaameeyey oo ilaahay rumaysan oo ilaahay ka baqa, amarka ilaahayna qaata, ayaa waxay u dhaqmeen sidii xayawaanaadka aanay waxbaba xaaraan ka ahayn. dabeetana xayawaanaadkii ay sifadooda iyo tilmaantooda yeesheen ayuu ilaahay subxaana wa tacaala kala mid dhigay. ilaa yowmi alqiyaamana sidaasay daayeer iyo doofaar ugu ekaan doonaan. xadiidka bukhaari baa wariyey isagoo mucallaqa, waxaana sanadkiisu iyadoo u xidhiidhsan yahay soo saaray alimaamu الطabri wakadalika albayhaqi wagayruhuma min aimati اlislaam. ayuha almuslimuuna cibaad allah, waxaa maanta dhexdeena lagu samaynayo waxaa ka dhalanaya waa waxa aada maqasheen iyo wax ka daran oo lagu sheegay adilo fara badan oo qur'aan iyo sunnaba leh. in badanna culimadu way sheegeen xumaanta ay leeyihiin heesaha noocaasi ah ee ay u leeyihiin dadka diintooda
qalbigooda, akhlaaqdooda iyo dhaqankooda iyo noloshooda guud ahaan in badan baa ummadda looga digay. haddana munkarka ummadda saasuu uga dhex jiraa. waajib waxay nagu ah munkarka noocaasa inaynu diidno oo qof walba intay awooddiisu tahay shareeca ay u ogoshahay inuu waajibkiisa arrinka noocaasiya uu ka guto. haddii kale cadaabka ilaahay markuu yimaado kuma koobnaanayo cidda xumaantaa samaynaysa. yacumu saalixa waalix, ka wanaagsan iyo ka xunba waa gaadhaya. suu uhi nabigu calayhi salaatu wasalaam yagzuu jeyshun alkacba faida kanuu bibaydaa min alard khusifa biawalihim waakhirihim. qolaa waxay doonayaan inay kacbada ku duulaan, markaasaa kii horeeyey ilaa kii u dambeeyey oo dhulka lala jaraya. nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa lagu uhi rasuulka ilaahayow dad aan falka noocaasa kula socon baa ku jire see baa dhulka loola jaraya. nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxu uhi yuksabu biawalihim waakhirihim uma yubcathuuna calaa niyaatihim. hadhow baa niyadoodiiyo waxay doonayeen lagu kala sooci doonaa, laakiin cadaabka ilaahay markuu yimaado dhammaantood wuu wada gaadhaya. ilaahay subxaana wa tacaala haddii bani aadamkan iyo makhluuqaadkani dulmi iyo xaqdarro, foolxumo iyo macsiyo ay la yimaadaan, ay la soo dariyaan, ilaahayna subxaana wa tacaala wuxuu ku sallidayaa aafaad iyo cilal iyo masaa'ib. wuxuu dhaha ibnu lqayim raximah llah kulama axdatha annaasu dulma wafujuura axdatha lahum rabuhum min alaafaati walcilal fi agdiyatihim wafawaakihihim wamiyaahihim waabdaanihim waashkaalihim min annaqsi walaafaati ma huwa muujibu acmaalihim wadulmihim wafujuurihim. dadku marka ay sameeyaan dulmi iyo xumaan iyo macsiyo, ilahay wuxuu ku sallidaa aafooyin iyo dhibaatooyin. dhibaatooyinkaas waxay ka galaan xagga raashinka. beeri baa ka xumaada ama raashinkiibaa wuxuu noqdaa mid halkuu wuxuu tari lahaa iyagii waxyeeleeya. khudaartu ayay balaayooyinkaasi kaga dhacaan, biyahay kaga dhacaan oo biyibaa fogaanayo la waayayaaba, ama biyo macaan halkay ka ahaayeen baa biyo qadhaadh ay noqonayaan oo ajo oo aan la cabi karin. jirhkooda ayuu ku dhacaa. iminka adiga arkee dadku ay yidhaahdaan dadku way sii hagaasayaan oo wax dhacay la garan maayo, way sii yaryaraanayaan. dadkii beriga hore dad dhaadheer oo xooga ahaan jiray waa sii yaryaraanayaan. dadku hadday ilaahay caasiyaan, ilaahay subxaana wa tacaala ciqaabka xataa jirhkoodu ku ridayaa. dad yaryar oo taag daran ayay noqonayaan. shakligooda isbedelaya. dadkii qurux badnaan jiray ayaa dad fool xun noqonaya. nuqsaan baa ku dhacaysa noloshooda oo dhan. ilaahayna addoomihiisa ma dulmiyo, oo wixii ka dhashay camalkooda xun iyo dulmiga iyo gardarrada ay sameeyeen iyo foolxumada iyo macsiyada ay u badrheedheen, ilaahay subxaana wa tacaala ha laga baqo. cidda arrimaha noocaasa ku jirtaa ilaahay ha uga toobad keenaan inta ay fursad haystaan. ilaahay baa toobadda ugu yeedhaya, rabbi baa subxaana wa tacaala u dembi dhaafaya, ilaahay baa ku jeclaanaya. ilaahay daraaddii hadday uga tagaan wixii ay ku heli jireen wax ka fiican ayuu ilaahay subxaana wa tacaala uu siinayaa. waxaa jira dad ganacsato ah oo ilaahay subxaana wa tacaala maal uu siiyey oo samaystay hudheello iyo goobo dadku ay isugu yimaadaan iyo hoolal dad fara badani ay ku kulmi karaan. waxaan leeyahay nicmada ilaahay subxaana wa tacaala idin siiyey ha ka kufriina. kufraanu nicma waxaa ka mid ah in nicmadii halkii aada uga faa'iidaysan lahayd raaligelinta ilaahay, umahadnaqiisa, nusraynta iyo garab istaagga diinta ilaahay subxaana wa tacaala, aada nicmadii uga faa'iidaysato wax ilaahay ka cadhaysiinayo macsiyo foolxumo oo xaaraan ah. adiga oo dhegaystay dhawaaqa shaydaanka iyo yaboohiisa, ashayطaanu yacidukum alfaqr wayaamurukum bilfaxshaa. ilaahay subxaana wa tacaala dhawaaqiisina qafladiiyo mooganaan kaga sugan. wallahu yacidukum makfirata minhu wafadla wallahu waasicun caliim. ilaahay ka baqa baan leeyahay oo nicmada ilaahay idin siiye barakada ha ka qaadina. ciqaab ilaahay mid idiin soo jiidana ha ka dhigina. oo qofka nicmada ilaahay siiye macsiye ku samaynaya, qofkaasi qof ilaahay nicmada ku ciqaabay wey. hadihi niqmat walaysat binicma. waa ciqaab ilaahay buu maalkiisu uu ku yahay ee maaha nicmo iyo wanaag. maalka wanaagsani waa maalka ilaahay kuu dhoweeya. ilaahay subxaana wa tacaala
diintiisa aada ugu nusrayso kor aada ugu qaado maaha kaad ilaahay subxaana wa tacaala aada ku caasido. ha ogaadaan goobaha noocaasa la ysugu imanayo ee lagu samaynayo fujuurka iyo macaasida iyo fisqiga noocaasa waxa ay ka qaadanayaan inuu xaaraan yahay, suxti booli inuu yahay, oo uu soo gelayo xadiidkii nabigu calayhi salaatu wasalaam uu yihi ayumaa laxmin nabata bisuxtin fannaaru awlaa bih. hilib kastoo qofka xaaraan kaga soo baxa naar ayaa u mudan inay cunto. qofkii aan hore u ogeyn ha ogaado, una malayn maayo falalka noocaasi aynu sheegnay inay xaaraan yihiin cid aan garanahayn maanta beledkan inay joogto. laakiin dadka shaydaan baa waswaas ku furay oo ku yihi dadku way ka shaqaystaane adiguba ka shaqayso. dadkii si kale kuugu iman maayaan buu shaydaan ku odhanaya. war ilaahay wuxuu kuu qoray mar walba waad helaysa. haddaad ilaahay caasidayo haddaad ilaahay adeecdo wixii ilaahay uu kuu qoray baad helaysa. daacada iyo ka amar qaadashada ilaahay inay wax kuu kordhiso mooyaane waxba kaa yarayn mayso. macsiyaduna waxbay kaa dhimaysaa, wax allaala waxay kuu kordhinaysaa ma jirto. wallahi faqri baad ka qaadaysaa, faqri qalbigaabaad ka qaadaysaa, oo faqri jeebkaabaad ka qaadaysaa. ilaahay baad dagaal kula jirtaa. wuxuu ilaahay yidhi dhulkayga ha ku samaynina ayaad samayntiisii hirgelinaysa. waxaad khilaafaysaa qowlku ilahay yihi walaa tufsiduu fi lardi bacda islaaxiha. war dhulka waan hagaajiya ha kharibina, waa ku kharibina macsiyo iyo foolxumo iyo fujuur iyo munkar iyo xaaraan shareecadu ay diiday. xoolaha noocaasa xaaraanta ah qofkii hadda haystaa si aanu ilaahay ugu ciqaabin maalka waa inuu gacantiisa ka saaro oo meelaha caamkee danta guuda uu geliyo. sadaqadna weliba u noqon maayo, waayo marka hore ku khaldanaaba xoolaha noocaasa urursigooda. mana banaano qof muslim inuu ka shaqeeyo goobta waxaa lagu samaynayo, ka mikrofoonka u rakiba dadka waxaa samaynaya, ka kuraasta u diyaariye u ratibe u dhiga, ka sharaabka u dhigdhigaaya, kulluhum mushaarikuuna fi lithm. dhammaantoodba dembigay wax ku leeyihin. ilaahay baa yihi subxaana wa tacala walaa tacaawanu cala alithmi waalcudwaan. wixii khaldane xaaraana cidda samaynaysa ee dembi ah waa inaan lagu caawin. waajibku waa in munkarka la bedelo. haddii gacan iyo carabtoona lagu bedeli kari waayena waajibku waa in qofka muslimkaahi meeshaas uu iskaga fogaado oo ka tago wey. inuu kaag dhawaadaana mid u banaan maaha. xoolaha noocaasa ciddii hadda gacanta ku haysa waa inay iska saaraan si aan ilaahay loogu horgeyn oo aan loogu ciqaabin. gacantooda waa inay ka saaraan. waa wixii waxa dambena waa in laga toobad keeno oo faraha laga qaado. ilaahayna subxaana wa tacaala fadligiisa waasicee ballaadhan lagu kalsoonaado. waxaan leeyahay ayuha almuslimuuna cibaad allah, beledkan aynu degannahay haddaynu ilaahay ku caasino subxaana wa tacaala aqwaamtaa hore inagu kama wanaagsanin, kamana xoog badnin, cadaabka ilaahayna ugama sabir badnin. inagoo hurudnu ilaahayna miri doona, ama goor barqa inagoo iska kala shaqo tagnay oo nabad baad ku jirtaan isla dhibaataba aan filanahayn ayuu cadaabka ilaahay noo iman doona. ilaahay baana taa warkaa qur-aankiisa inoogu sheegay. wuxuu uhi rabbi afa amina ahlu lqura an yaatiyahum ba'suna bayaatan wahum naa'imuun. dadka magaalooyinka degan ee wuxuu ilaahay u diiday samaynaya miyay ka aamin noqdeen? ama damaanad bay haystaan inaanu u imanahayn cadaabka ilaahay goor habeennimo iyagoo iska hurda waxbaan iska ogeyn? aw aamina ahlu lqura an yaatiyahum ba'suna duxan wahum yalcabuun. miyay ka aamin noqdeen ilaahay cadaabkiisu inuu u yimaado goor barqa ah iyagoo iska ciyaaraya hawlahooda iyo danahooda adduunye ku foogan oo warma qabta ah? afa aaminuu makra allah. waa kuwa xumaanta samaynaya iyadoo aanay la socon wax xishooda iyo wax baqa ah iyo filasho cadaab iyo ciqaab ilaahay ay fishaan. ilaahay subxaana wa tacaala makrigiisa miyay aamin ka noqdeen? falaa ya'manu makr allah ila alqowm alkhaasiruun. dad khasaaray unbaa sidaa yeela. alamnu min makri illahi waa maxay? waa qofku inuu macsiyada sameeyo ku dhiirado min gayri khawfin walaa xayaa, iyadoo in yaro baqiina aanay ku jirin, oo uu yahay masruur wa farxaanun biha, mid ku faraxsanba oo laba dhacsanba. hada aaminu min makri illah. qofka macsiyada samaynaya isagoo baqanaya
oo xishoonaya oo la dhuundhuumanaya iyo qofka macsiyada samaynaya isagoo ku faraxsan oo in yaroo baqaa iyo xishoodiina aanay qalbigiisa ku jirin, qofkaasi labadaa qof kuwa isku mida maaha. waxa daran qofka macsiyada dembigaa kale alamnu min makri illaahi u raaco, inuu ilaahay subxaana watacaala ciqaabkiisa is yidhaahdo aamin baad ka tahay oo sidii qof aan waxba ku dhacahayn inuu shaqeeyo. ilaahay subxaana watacaala inuu ka baqana dhammaanteenba. munkaraadka noocaasana qof kastoo muslim oo garanaya, waana la wada garanaya in waxaasi munkar yahay, waa inuu kaalintiisa ka qaato siduu uga hortegi lahaa. haddii ay tahay qof mas-uula, hadday tahay ganacsato iyo dad kale goobaha la ysugu imanayo xumaanta lagu samaynayo, hadday tahay culimada iyo ducaadda, hadday tahay da-yarta iyo waayeelka, ma aha in afar wadaad arrimaha noocaasa lagu hadlayo ka hadalkeed iyo ka hortagooda. waa in ummadda oo dhami ay u midowdo, waayo dhibaatada iyo ciqaabka ka dhashaa sidaad maqasheen ummadda u wada gaadhaya. ilahay baynu ciqaabkiisa iyo nacdashiisa ka magan gelaynaa. ilahay baynu weydiisanaynaa xaqa inuu inagu sugo, hanuunkana inuu ina waafajiyo dhammaanteen. kuwa xumaantaa sameynaya waa u ducaynaynaa, ilaahay towbadda ha waafajiyo oo khayrka iyo wanaagga quluubtooda ha geliyo. waxa ay samaynayaanna foolxumadiisa ilaahay subxaana watacaala ha tuso. ilaahayna waxaynu ka magan gelina iyaga laftooda khaatimo xun. qofku waxa haddii uu ku dhinto isagoo ku jira wuxuu noqonayaa qof ay khaatimadu ka xumaatay.